muwaadin maxaad ka xasuustaa madaxweynihii saddexaad ee Soomaaliya ee si dimuqraadi ah loo doorto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxqabadkii Xasan Sheekh Maxamuud ee 4 sano ee uu dalka Soomaaliya maamulayay maxaad ka xasuusataa barnaamijkan ayaan maanta idinkugu soo gudbinaynaa annagoo dib idin xasuusinayno waxqabadkii dawladii Xasan Sheekh isaga oo kamid ahaa madaxdii jaamacadda Simad asaasay habeenkii la doortay Xasan Sheekh dalka waxa uu ahayd habeen farxadeed maadaama dalka uu hogaamiyay madaxweyne aqoon-yahan ah waliba dalka gudihiisa wax ku bartay dadna wax ku baray Xasan Sheekh dalkani wax badan ayuu soo qabtay barnaamijkan waxaan idinkugu gudbinaynaa waxqabadkii dawladii Xasan Sheekh 4 sano ay dalka maamuleysay iyadoo oo dalka ku hogaamisay doorasho xor iyo xalaal ah taasina lagaga adkaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud musharaxa haatan u taagan qabashada xilka madaxweyne ee Xasan Sheekh Maxamuud waa kan waxqabadkii dawladii Xasan Sheekh waxqabadkii dawladii Xasan Sheekh tan iyo burburkii dawladii dhexe ee Soomaaliya dalka waxa ka talinayay dawladda gumeel gaar ah sanadii 2012 dalka Soomaaliya waxa uu dilaacay waa cusub oo talada dalka kula wareegay aqoon-yahan ka soo dhaxbaxay bulshada rayidka ahna asaasii maxadka Simad madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud intuu talada dalka hayay waxa uu hirgelay 1 dhisidda xarumaha 12 wasaaradood 2 dhisidda garoonka caalamiga ee Aadan Cabdulle Cusmaan 3 dhisidda garoonka kubadda cagta ee Koonis 4 dhisidda 8 wado oo muhiim ah oo kala ah jidka wadnaha jidka sodonka shaqaalaha dabka Makal Mukarrama tarbuunka airportka jidka xalana gala iyo General Daawud 5 dhisidda garoonka caalamiga ee Garowe International Airport 6 dhisidda 4 maamul goboleed oo nandhi ku daadanin 7 dhisidda xarunta golaha baarlamaanka 8 mashruuci Go to School oo 1 milyan oo arday ay ka faa'iideysteen 9 institutionkii dawladnimada inteeda kale 10 maxkamad geentii kiiskii badda oo hadda nabad iyo nolol ay mugdi geliyeen 11 dhisidii bangiga dhexe ee Soomaaliya 12 dhisidii iskuulada dawladda 13 dhisidii isbitaalada dalka oo kala ah isbitaal Martini isbitaal Digfeer isbitaal Madiina iyo isbitaalkii xoogga dalka 14 dhisidii wasaaradda gaashaandhigga qaranka 15 xarumaha dawladda oo mid walba laga dhisay masjid 16 xarumaha ciidanka 17 dhisidda xarunta asluubta iyo xabsiga dhexe 18 dhisidda xarumaha 17 degmo ee gobolka Banaadir 19 dhismaha xarunta gobolka Banaadir 20 dhismaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed dawladda Xasan Sheekh ayaa intani in ka badan dalka u qabatay balse waqtigii ayaa ka dhamaaday asaga oo Xasan Sheekh 6 tiir oo hore u balan qaaday in uu dalkani ka qabanayo qayb kamid ah qabtay halyeeskiisii ahay qabiyo qofkeeda dhameystira muwaadin niyeysan mudnayn in Xasan Sheekh dib loo doorto si tiirarka dhiman ama qabiyada qaybteeda dhiman si uu u dhameystiro Xasan Sheekh aqoon-yahan dalka u baahan yahay محل دولة